waalid haddii ilmo aad dhashay uu balwada iyo waxaa dhex galo allah awlaadeena badbaadiyo balse ay ka soo noqdaan marka ay ka soo noqdaan waxaa jira wax la yidhaahdo addiction withdrawal oo ah balwadii ka soo noqday sifooyin qofka ka muuqanaya ood arki karto sifooyinka ka muuqanaya waalidow waxay u qaybsami karaan kuwo muuqaal ahaan aad arkayso oo markaa kuwo khatar ah iyo kuwo caadiya isugu jira iyo kuwo nafsiyan ah ama maskax ahaan oo psychological marka physical symptoms iyo psychological symptoms labadaba waa jiraan kuwa physically aad arkaysa kuwa muuqda noocooda khatarta waxaa ka mid noqon kara confusion ama disorientation qofku inuu kala socsocdo kala hadlayo waxba uusan qabsan karin hadduu koob shah gacanta qabto laga yaabo inuu koobkaasi ka dhaco waxaa ka mid noqon kara seizure qalalka waxaa la yidhahdo inuu qofku ku dhaco waxyaabahaas oo dhan ayaa ka mid noqon kara kuwa iska caadiga ah waxaa ka mid noqon kara nausea inuu qofku yalaaluga yeesho mararka qaarkood way hunqaaci karaan increased heartbeat inuu garaaca wadnahoodu yara zaa'id noqdaan dhici karta waxaa dhici kara oo kale fatigue daal fara badan waxaa dhici kara dhidid fara badan inaad qofkan ku aragto waxaa dhici kara hurdadu inay ka tagto waxaa dhici kara in qofku uu iska caajisan yahay waa wax iyadana inta badan la arko psychologically marka la yidhaah depression buu qofku yaro geli karaa muddadaas uu ka soo noqday balwadaha iyo waxa lamidkood ku arki kartaa noocyada depressionka kala duwan waxaad ku arki kartaa irritation inuu qofku iska yaro cadho badan yahay oo wax yar marka laga sameeyo uu cadhoonayo uusan dulqaad lahayn waa wax iman kara lack of motivation in qofku hami sare u yeelan karin oo muddadaas qof iska caajisan oo iska jiifa inuu noqdo ayaa suuragal ah waxyaabahaas aad arkayso waa wax marka ilmuhu ay ka soo noqdaan balwadda waalidow kuu muuqan kara solutionka muxuu noqon xalka waxa uu noqon karaa waa kow in qofkan hydration cabitaan fara badan uu qofkan cabo waxa la yidhaahdo detoxification jirkiisa ama gabadha jirkeeda suntan ku jirta inay ka baxdo marka in lagula dadaalo cabitaan fara badan qofku inuu qaato waxaa aad loo ammaanaa cunto markaa leh nafaqo fara badan leh inuu jirkiisa helo sidoo kale support systemku waa very important inuu helo ehel ama famil aan ku ceebeynin waxaan noloshii hore aan ka hadlaynin laakiin mar walba maaragtay kor usii qaadaya maxaad rabtaa maxaan kuu qaban karaa iyo saa odhanaya qur'aan in lagu akriyo waa arrin iyaduna aad u badan waxaa iyadana muhiima environmentiga ama bay-adda qofka ku kaliftay balwadaha inuu dhex galo in laga yaro kaxayn karo bilmasal hadduu qofku wadamadan joogo in gobol kale oo ehelku joogaan oo kale muddo ay soo joogi karaan hadday waalidku duruufaha dhaqaale u saamaxayaan cumradoo kale qofka in la geyn karo oo markaa u arki karo dad wanaagsan oo ehelkiiyo asxaabtiisa u raaco oo hadhowna ay soo cimraystaan oy soo noqdaan haddii markaa la geyn karo wadankii oo kale wadankii marka la yidhahdo runtii kama wado nairobi iyo meelaha lamidkeed iska africa oo kale laakiin haddii qofka magaalooyinkeenii la geeyo muqdisho hargeysa jigjiga boosaas iyo waxyaabaha lamidka ah kadibna miyigoo kale la yaro geyn karo banaanka uu natureka iyo dhirta iyo waxaa soo arki karo caanihii xoolaha soo cabi karo waxyaabahaasoo dhan runtii qofka maankiisa way soo celinayaan marka inahaas yaan rabay inaan u tilmaamo waalidiinta ila soo xidhiidhay waxaan saa u leeyahay marka waalidka marka ilmaha uu ka soo noqdo balwadda way ku wareeraan waxay ku dhihi il baa ku dhacday waxay ku dhihi waa la sirxay waxay ku dhihi jin baa galay maya isha iyo jinka iyo sixirka iyo waxaa la yidhaahdo addiction withdrawal shaqo iskuma laha waxyaabahan qofku markuu balwadda ka soo noqdo waxa weeyaan sifooyin ama symptoms ka muuqan kara marka isdeji waalid insha allahu tacaala ha odhan waa jin ama waa il ama waa sixir waayo calaamadahaasi way kala duwan yihiin ilaahay awlaadeena xifdiyo innagana ina xifdiyo fadlan muuqaaladan follow dhaha like dhaha walaalaha muslimiintaana la sheer garaysaan u wada socono wassalaamu calaykum waraxmatullah